الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. walaalayaal, waxaynu ka warannay jumcadii hore dhaqaalaha iyo sixir bararka ama dhaqaalo burburka inagu dhacay iyo sixirka qaaliga noqday ee kor u kacay iyo cilaajka iyo dawada aynu ku daweyn karno ma'aasaadka iyo dhibaatooyinka aynu la lagu dhabayno. waxaan doonayaa inaan jimcahana ku daro oo aan ka dabageeyo hadalkaa hore dhaqaalo la-aanta waxyaalaha sababta inoogu ah ee aynaan dareensanayn. laga yaabo inaynu isu aragno waddan faqiira iyada oo aynu burburinayno dhaqaalo la burburiyo ka ugu badan. caadaadka iyo dhaqamada xunxun ee waddankeenna ka jira ee diin iyo adduunye iyo maal iyo moodba galaaftay waxaa ka mid ah quudashada aynu quudanayno geedka qaadka la yidhaahdo. qaadku waa dhib weyn oo ina saamaysay rag iyo dumar, carruur iyo ciraallo, caame iyo culimo, shacab iyo xukuumad. waa mid dhib ku haysa dalkeenna iyo dalagga ka soo baxaya, danteenna iyo diinteennaba mid dhibaysa weeye. sidaa aawadeed, khayrka iyo wanaaggu wuxuu ku jiraa dadka muslimiinta ahi inay isku booriyaan wixii wanaaga, wixii sharana ay isaga digaan, iska ilaaliyaan wixii daydayacaya zamanka iyo xilliga qaaliga ilaahay uu siiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku dhaartay zamanka iyo xilliga. allah wuxuu yihi: walcasr ina alinsaana lafii khusr. waxaan ku dhaartay zamanka iyo xilliga insaan dhammaantii khasaaruu ku sugan yahay ilaa 4 sifo ciddii laga helay mooyaane: kuwa anigay rumeeyey iyo rasuulkayga ee camal wanaagsan oo saalixa la yimid, wanaag sabirkana isu xaqana isu dardaarmay, sabirkana isu dardaarmay. walaalayaal, qaadku waa aafo inagu soo korodhay, waa aafo dalkeenna iyo dadkeennaba haysata, inta dareensana ay aad inoogu yar tahay. aafooyinka qaadku inagu hayo iyo dhibaatada uu inagu hayo waxaa ka mid ah waa madiica lilawqaat. qaadku wuxuu dayacaa waqtiyada oo dhan ayuu lumiyaa. qaadku waa mid waqtiga dayaca. waxaana laga yaabaa qofka qaad quutaayi inuu waxa weeyaan qaadka u fadhiyo
muddo 6 saacadood ugu yaraan ah haddaanay ka badnaynba qaarkood intay maqribka fadhiistaan bay waa beriga ka kacaan ummaddu markay salaada subax u socotay jamaacaadka iyo jamaaca tegayso iyaguna guryaha ayay hurdo tegayaan iyagoo xal oo dhan soo jeeday waqtigoodina dayacay oo lumiyey waxaanad ogaataa ayuha almuslim cumrigaagu waa saacado la isu geeyey maalmo iyo habeenno la isku biiriyey dhammaan cumriga adaysataa weeye waxay salafku odhan jireen ya bna aadam inamaa anta ayaamun walayaal faidaa dahaba bacduhu dahaba bacduk ogow inaa aadanow inaad tahay habeenno iyo maalmo la isu geeyey mar walow habeenadaa xilli tago ama maalmaha xilli uu tago xilli bar adiga kaa mida ayaa tegay ayay odhan jireen oo waqti adiga kaa mida ayaa socday markaad go'go'dood yaryaraatana jasadkaagu inuu dhammaanayo shaki kuma jiro laanno shay wal oo gurma oo yaraadaa dhammaad ayaa u dambeeya iyo inuu dhammaado waxaa nabigeennu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waqtigu inuu yahay waxyaalaha ilaahay hortiisa laynagu weydiin doono bal waqtigu waxay dadka qaariyaan dadka adduunyada aadka u yaqaanaa alwaqtu min dahab waqtiga dahab baa laga sameeyey laakiin luqada shareecadu waxa weeye alwaqtu huwa alxayaa waqtigu waaba noloshii weeye noloshaada dhammaanteed waa zaman waa saacado iyo minidho iyo daqaa'iq iyo sakino la isu geeyey habeenno iyo maalmo iyo bilo la isu geeyey usbuuciyo iyo wiiga la isu geeyey dhammaan xilliga aad nooshahay intaa weeyaan wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam lan tazuula qadamu cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbac can cumrihi fima afnaah وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وحنبي يقول عليه الصلاة والسلام قم ذا يلقت قفك مسلم كاي كدقاقي ميسو إلهي ورتيسا إلا أفر سؤال إلا ويديه قفل بأفر سؤال إلا إلهي ويديه سؤاشك واضح ويه وحل ويدينا يا عمري سوحي وكدمي waxaa la weydiin doonaa qof walba oo la su'aali doonaa dhallinyarnimadiisi wixii uu ku baaliyeeyey ee ciradu ay kaga soo baxday daamanku ay la goteen dhafooraduna ay la dheeraadeen dhallinyarnimadii iyo xooggii iyo wejigii wirwirayey wuxuu ku baaliyeeyey ayaa la weydiin doonaa waxaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiin doonaa cilmigiisi wixii uu kaga camal falay waxaa la weydiin doonaa maalka iyo xoolaha uu shaqaystay halka uu ka soo gasbaday ee uu ka soo shaqaystay iyo halka uu ku bixiyaa la weydiin doonaa ilaahay markuu ku yidhaahdo boqolaalkii kunaan ku soo geliyey xaggeed geysay miskiin wax ma ka siisay cunto xalaala ma ku cuntay ubad iyo oori ma ka biilisay ilaahay ow ma mijin dadaraan siistay aabbaa yaaba iyo daba musmaar baan ku cunay madhab baan isla dhacay jawaab ilaahay hortiisa wax ku taraysa miyay noqonaysaa isweydiin naftaada is'al nafsak ayuha almuslim naftaada weydii muslim yahow waxaad ku jawaabayso aafaadka qaadka waxaa ka mid a anigoo aada u soo koobkoobaya oo aanay khudbad quri ku fillayn waxaa ka mid a aafooyinka qaadku inagu hayo waa madyaca lilamwaal qaadku xoolaha ayuu burburiyaa malaayiin baa ku baxda qaadka oo inaga baaba'da maalin walba kulla yawm wa kulla shahr wa kulla sana bil kasta maalin kasta sanad kasta malaayiin dollar ayaa inagaga baxa haddii malaayiintaa baxaysa intaynu isu geyno aynu maalin walba 100 qoys xoolo ugu samayn lahayn oo aynu dib ugu xoolayn lahayn intee oo qani iyo intee oo taajir baynu sanadkii yeelan lahayn intee oo taajir baa sanadkii inoo soo bixi lahaa oo waxaan la xisaabin karayn maanta Somaliland waxaa lagu qiyaasaa dadka ku nool 3 milyan iyo 500 ilaa 4 milyan inta ka dhaxaysa maxal kuweena Itoobiya degan ayaynu soo gurnaa maalinta diiwaangelinta oo waxa weeye kaararka la qaadanayo ama la istirikoobayo 500 kun ka soo qaad dadka dibadaha ku nool milyan iyo 3 milyan iyo 500 ka soo qaad inta gudaha dalka degan bal badiba oo 3 milyan iyo 500 kun marka aad yarayso milyan iyo 500 inay qayilaan ka soo qaad rag iyo dumar isu geeyo sagiir iyo kabiir milyan iyo 500 kun oo ruux waxay ku qayilaan $2 ilaa $30 inta u dhaxaysa ayay ku qayilaan
kuwa cuna kiilooyada daba musbaarka iyo baayaaba iyo kuwa cuna iyo waxa weeyaan kiilooyada kuwa cuna $30 ayay ku qaylaan kuwa mijinta dadarta cuna iyaguna waxay ku qaylaan 18 shilin oo $2 isku soo wada xoori isku soo celceli iska soo qaad $2 inaan ku qaylo maalintii milyan iyo 500 kun oo qof ayaa min $2 ku qaylay sigaar kumaan darin shaah kumaan darin biyo raacis ma sheegin jabana ma sheegin waa qaylaad khaliya taduur dabadii la fadhiisto waxa kale oo dhan iga daadi $2 oo qoray ku qayleen waa milyan iyo 500 kun oo ruux $3 milyan oo bay cunaan maalintii 30 maalmood ku dhufo 90 malyan oo $, ayay cuneen 12 bilood igu dhufo waa 1 bilyan iyo 8 kun oo $, iyo 8 milyan oo $, 1 bilyan iyo 8 malyan oo $, way bal xisaabi billahi عليك انت waxa weeyaan maarad waxa 100 milyan 108 milyan weeyaan ay نعم 1 bilyan iyo 8 milyan oo $, yaan ka noqon saas way 1 bilyan iyo 8 milyan oo $, way sanadka kaliya Somaliland oo dhan miisaaniyadeeda wasiiradu cunaan agaasimayaashu cunaan ciidamada lagu seef gareeyo dalka lagu ilaaliya 360 milyan oo $, way sanadka dhan miisaaniyada Somaliland ee 8 jeer intaas oo jeer baa la laabay ay dawladdu waxa weey tiri ay dawladdu ugu badneeda kor u qaado waliba ay tahay taamaanteena marka waxay dawladeena ee maanta joogto madaxweynuhu hogaaminaya Axmed Maxamed waa 360 milyan inaguna waxaynu ku qaylnaa 1 bilyan 8 milyan oo $, waynu baqtiyana been marun baa sababeen idinka dhigtay been way midna baqtiyana midna ma qabno inaga ayaa isbaqtinay cidinayna ma baqtinin bal 1 bilyan iyo 8 milyan hadaynu dawladda qorasiin lahayn bal iska daacid kale oo oran lahayn madaxweyne anigu sanadkii waxaan kuugu deeqayaa 12 bilood maalintii $2 baan ku siinayaa anigu bishii $60 baad iigu soo hagaagaysaa 12 bilood oo $60 ayaan ku siinayaa inta akoonka dawladda ka eego oo 500 qaylaya hablaya inabo min $2 ay madaxweynaha siin lahayn dawladdu miisaaniyad intee leeg bay kordhin lahayd wadooyin intee leeg baynu samaysan lahayn isbitaallo intee leeg baynu dhisan lahayn iskuulle intee leeg baynu dhisan lahayn horumar intee leeg baynu gaari lahayn wadankeena wax faqiir lama heleen nin waliba fadhigu ku qaadan lahaa mushaar iyadoo dawladdu lacagtii isaga ay ka ururisay dib ugu soo celinaysa caruurteenu waxbarasho bilaash ay heli lahaayeen laga bilaabo markay uulada galaan ilaa inta jaamacad ka qalin jabinayaan jaamacadda ugu qaalisan ama fakalka ugu qaalisan waxa lagu dhigtaa laga yaabaa semesterkii $200 kaba soo qaad saddex semester sanadkii way waa $600 1 bilyan 8 milyan oo $, markay dawladdu gacanta ku dhigto intee oo ubad ah ay waxbarasho bilaash ku siin lahayd macallinku mushaar intee leeg buu qaadan lahaa askarigu mushaar intee leeg buu qaadan lahaa hadda waxaynu kordhinimo jirto ganacsimayna soo biirin gowska waxaynu ku cunaynay ee waliba dooga ahaa ee isagoo cagaar oo fool xumada aad yaabto oo xataa riyuhu ka wiswisayaan riyuhu ma cunaan caliyada kuwa qayra wallahi inaanay cunin bacdu ku gunta halkaas ku tuura riyo waxa la wax cunaa ma jiro aasay ku qalanaysa hatta xayawaanka ka wiswisa waxa laga wiswisayo qiimaha fiisatay hadda dalkaaga ugu deeqi lahayd ka waran horumar intee leeg baad gaari lahayd markaas waa halkan intuu fadhiisto $30 kiilo intuu cuno ayuu odhanayaa waanu baqtiyayna kuwa iibinaya hadda lagaan masaariif baanu kala soo baxnaa sheekh ubad baa laga biiliyaa war 1 bilyan 8 milyan oo $, baa Itoobiya u geysaa sanadkii dabakaayo ka furo dawladda dib igu soo celi ku dhow wixii adiga ururisay dabakaayo in dukaamada supermarket furta dukaamo sharaaf furta kuwa cunada furta xalaal iibi lafahaaga ilaahay uga xishood adduunyadaada iyo aakhiradaada u turo arsaaqda ilaahay qofkii weydiista uu siiya laakiin ilaahay rizq xalaala subhanahu wa ta'ala rizq harama ilaahay subhanahu wa ta'ala raalika maaha rizq xalaal buu ilaahay ku amray inaad qoodato waxa kamida aafooyinka qaadku leeyahay qaadku caafimaadka waa u daran yahay waa mid caafimaadka burburiya waxa laga qaadaa qaadka sida dhakhaatiirtu cadeeyeen xanuunada waaweyn ee loo yaqaano al-fashal al-kilawi wal-kabidi beerka iyo keliyuhu inay fadhiistaan qaadka ayaa sabab u ah dadka maanta dhinta wadankeena qaybo badan oo kamida kaliya ayaa fadhiista
waxa cisbitaalka kaliya loo sifeynaya ama hindiya kali loogu saarayo madaxa kugu yaalo way ka badan yihiin maxaa sababay isweydii maxay odayaashii miyiga joogay 1960 iyo 1950 maxay kaliya u fadhiisan waayeen ee biyo aan nadiif ahayn cabbi jiray oo smiirka kuwii cabbi jiray kaliya maxay u fadhiisan waayeen sunbaanay cabbayne wax cabbayeen wax nool oo hagaagsan bay cabbayeen adna sunbaad liqliqaysaa oo maalin walba caagad mooyo sixaa min 2 litira iyo 3 jeer soo buuxsanaya 6 litir buu cabbaya garaabo kasta uu riyana uu liqaya ilaa nin baaba iska tufee xataa uu siibaya oo uu dajinaya hadana waxa oranaya kaliyaha ay fadhiya waxa laga qaadaa xanuunada laga qaada kamida bacf ku yimaada jirka waxa laga qaadaa neerfaha iyo xididada dhig mareenka uu dhiiga wareejiya oo khalkhal ku dhaco waxa laga qaadaa dhabar xanuun xubna xanuun lawya xanuun waxa laga qaadaa gacmo gariir barkuwa qaylo u fiirsaday qaadka muddo cunay markay gowsuhu daataan ayay tib iyo mooye iibsadana way tuntaan isagoo tib tahayn karay oo tibtu saa u ruxmays hatta ma hayn karay ya ayu markuu hayn karay mid oranay waariitu bil alaygitu aqaartaytu ya hatta nolol ma hayo iska daa aakhiriya diini nolol ma hayo hatta nolol uu ku noolaado hatta ayaanu haysan waxyaalaha laga qaado waxa kamida waxa weeyaan qaadka caafimaad darida uu sababo waxa kamida qaadku wuxuu kordhiyaa sonkorta ku jirta nisbada sonkorta jirka ku jirta ayuu kor u qaadaa macaan degdeg ayuu keenaa qaadku waxa laga qaadaa kansalka ku dhaca afka iyo ciridka iyo midhicirada kansalka ku dhaca ayaa qaadka laga qaadaa qaadka waxa laga qaadaa soo jeed badan iyo hurdo la'aan araq waxa loo yaqaano xanuunka araqa la yiraahdo waa xanuunada ugu dhibta badan leh daawayntooda dhaqaatiirtu ay la yaabaan in la qofka laga daweyn bakaray al araq waa xanuun khatar weey xanuunka hurdo la'aanta go'do markuu 10 maalmood seexan waayo ayuu waalanaya sawirayaan jibba dardare ilaajka sahana lagu soo xiro ilaajka sahan ma nin qaad waalay oo dardaran ayuu wax u qaban karaya waxba ma qaban karayo hadduu ayaama la seexiyo nasto markuu dib u miyirsado abu barti kamiisaya xanuunkiina barti buu ka soo noqonaya waxa laga qaadaa xanuunka loo yaqaan al halwasadu waa maxay waa takhayyul shay la wujuda lahu qofku inuu ismoodsiiyo shay aan jiritaan balahayn gabadhiisu uu ka shakiyo inay niman kala ii weydaarta gurigu galafaya habeenkii uu waa nin waalo dardarane habeenkii markuu guriga soo galo guriga galafaya waxba u sanqaraya jiirka xayawaan ula eegaanayo waxa weeye markaa nin jiirkan cararaya nin ula eegaanay baranbarada qof ula sawirmas waa khayaal la wujuda lahu adawna waa fayaansanahay waa xanuun ma fayaan mirqaan ma aha oo xanuun xidiga xalay tiriyo mirqaan sanabu kulli war waa xanuun xalay dhan waxay cunayeen dubaad alla wixii jiir magaalada joogay dabadeeda ku dhamaadeen buu oranay alla wixii jiir magaalada joogay qabaan israa dabadaba way ruqdaa xagga hor uu si carrabo kulli niga saamiir qaba ilaah baan idin ku dhaariyay masaajid baa fadhidaane ma qofka saamiir qab lagu xisaabinaya dabadiisa gacantiisa dabadiisa isku waalatay markaas alla uu xisaabin karaa miir qab war adduunyadii uu baabiyay dalkii uu inaga haligay duunyadii uu qaatay diintii uu qaatay dadnimadii uu qaatay waxa way daryeelkii uu qaatay caafimaadkii uu qaatay kullu shay qaadkana waa qaatay abaar inama haysay inaga abaara inaga laftirkeena ayaa abaar socda gowsaheena 9 kan ilaga inagu yaala ayaa abaar ah 8 gows baa abaar kale kuma haysato sida weynad ogaatay dadku way xisaabtamaan waxana cunaysa maxaa ka soo galay isweydiya war ninka maalin walba inta cunaya hadduu bal maalin walba intuu qaadkiisan iyo raashinkiisa la intuu leegan laha afar libax may dhameeyeen gidaarkaas uu leegan laha imikana dabaysha qaadayso dabil xayaada ma dhaxlugayn karayo nolol ma hayo jir ma hayo naf ma hayo qurux ma hayo dheecan kaba sareeyo ubad hagaagsan ma hayo oori ma hayo ya aafooyinka qaadku inagu hayo waxa kamida innahu yufakkiku al-usar qaadku wuxuu kala eriyaa qoysaska iyo xaasaska qaadka ayaa burburiya oo ninka waalana jiirku ninka uu noqonayo jiirku ninka uu sawirmayo miskiin maanta aan qadayn ubadkeedu ku yuusayeen ma aawana cashaan dab u saarin markuu la yimaado aflagaado iyo nacnac markuu la yimaado waraanigii guriga ka sii baxay muxuu ah qodinkii reerka hortiisa ku yaalay waa nin wax wada qodinka halka yaalay islaamu dharka ku wadaan nin buu yahay si talaabayo wada ka talaabsanaya nin maxay bay tiri gabadhi ninkii imika sii baxay dharkay maanaga indhaha qabanaysa min waxba arkay baad moosma nin waalan baad ii haysataa imika kii wada iska guriyay muxuu reerka ka sii baxay subhanallahi alazim
imsa reer baa sidaa ku burburay oo markii loo taagi waaye xal loo waay ilayn ma odhanayo waan waalanahay waa soo qaylaba odhanaye reerkayga reer rag kalaa ka shaqaysa ayuu soo istaagay afarta oday ee caaqiladiina markay isu yimaadaan war labada ruux isla ildareeyeen aan kala kaxayno imisa loo kala kaxay imisa qoys baa sidaa inaga burburay billahi calaykum oo Itoobiya inaga baabis imisa qoys waa ta saddexaad qaadka waxa lagu buufiyaa sun oramada sunta ku soo buufisaa ma cunto kaynaga inaga iibsayna waa in cunayno aynu ilaa caloosha ka buuxinayno ma cunaan kuwa beerta tan inaga inaga iibiyaan ma cunayaan sunta gamaasiinta oo mamnuuc ka ah adduunyada ayaa la cunaa qisa ayaan doonayaa inaan u sheego dadka ay dhageysanaya kuwa ay daawan doonaaba ay ka faa'iideystaan nin dhakhtar oo reer Burca ayaa waxa xanuun baa ku dhacay waxa la geeyay dibadda sun beerkiisa waxa laga helay sunta la raad gamaasiinta dhaqaatiirtu waxay ku yiraahdeen beerkaaga suntan gamaasiinta maxaa ku sayriyay beerkaaga u geeyay suntiibu garan waay waa nin dhakhtar caafimaadka yaqaan dib uu xasuusto wuxuu waa qaadka iska dhaaf burcu ku soo noqday masaajid waliya meel kasto la isugu yimaado uu ka kacay war beerkayga suntaas laga helay muddo yar inaan noolaanayo dhaqaatiirtu ii sheegeen xaaladayda caafimaad ma fiicna reer Burca way garanaysan war way qaadka iska daaya wariga dambeeyo qaadka iska daa sidoo sida tabliiqa ugu jiray uu dadka u gaarsiinay fariinta ayaa uu ku geeriyooday way qoslayaan oo way dhageysanayaan marka ay maqlayaan way qiiroonayaan oo madaxay ruuxayaan dibadda markay u baxaan laba dhe ka dhakada weyn oo makumbaad weeyday ka dhakada weyn oo makumbaad weeyday ayuu habeenkii ku sii urursanaya markaas waa dhowr bal waali suuqa lagu iibinayo ka warama suuqeeni baa waali lagu iibinaya adduunyadu waalida way iska dawaysaa ma iibsato inagu waalida waan iibsanaa waalida 5 waalida 6 waalida 8 waalida 9 waali suuqa lagu xaraashay ka warama billahi calaykum war meynaan damiir lahayn war dadnimadii meeday war diintii meeday war dawladnimadii meeday war dad waxa weeye markaas damiirkii mee dad fikiraya oo xisaabtamaya miyaynaan ahayn dib aynu isugu noqono account-ka dawladdu furtay ee tabaale dadkaaga abaaraysan loo bixiyay bal nin walow qaylo maanta hadalkayga maqlaaya ama telefishinka iga daawanaya waxaan ka codsanayaa inuu $2 oo kaliya ku shubo nin kastiya naag kasto qaysha ila naaga badan oo qaylaan u jiraan inaga dumarkii baa waxa weeyaan ugu daran ba iyaga ugu daran oo qayla rag iyo dumar isu gee alla waxa qayla min $2 oo kaliya account-ka bala ku shubaan subax xisaab xidhkiisa dabeedna inuu dhageysan inta ku soo dhacday markaas in xisaabtami doonaa in wax garan doona walaalayaal qaadku aafaad iyo aad u badan ayaa uu leeyahay duuyo iyo diin iyo dadba way naga qaatay walaalayaal aafooyinka qaadku inagu haya waxa kamid ah qaadku wuxuu ka mashquuliyay aabayaashii iyo mas'uuliyiintii reeraha iyo ubadka mas'uulka ka ahayd caruurtooda tarbiyadoodii iyo dumarkooda hagaajintii iyo maamulkii dumarkooda ayaa uu ka mashquuliyay waxa uu kaga mashquulay qaadka qaylaada iyo la fadhiisiga marfashada qaadku wuxuu sabab u yahay faafitaanka laaluushka iyo cunidiisa iyo bixidiisa maxaa yeelay qof waloo qaad cunaahi wasiilo iyo sabab kasta oo uu qaadka ku helayo waa uu marayaa oo waxay markaa waa ku doonanaya sifo kasta oo uu qaad ku helayo ama xaaraan ha ahaato ama xalaal ha ahaatee waa mid maraayo waxa weeyaan doonanaya ilaahay rasuulkiisa muxamediina calayhi salaatu wasalaam waa uu inaga mamnuucay laaluushka waxa loo yaqaano wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam lacana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam min xadiidi jaabir alraashi waalmurtashi waalraaisha baynahuma nabi maxamed waa nacdalay laaluush bixiyaha iyo laaluush qaataha iyo ka dhex shaqeeyaha laaluushka u kala qaada qaadku waa sabab weyn oo kaliftay in laaluushku faafo oo cid wal oo shaqaynaysay ama waxa weeye mas'uuliyad haysay mas'uuliyadiisa uu siisto mijin qaada waxayna waale waa qaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaynu ku joognaa ilaalintiisa iyo ricaayadiisa ilaahay baa ina dhowrayo ina ilaashanaya laakiin waxa weeyaan waxaynu mudannahay haddii la israado xasuuqa waxa la waxa suuqeenu mudaya ma jirto $1,500,000 oo ruux oo min mijin qaada loo soo sumeeyay ayaa subax qura kow laga siin karaa kow $1,500,000 oo ruux ayaa maalin qura ay ka agoodi kartaa haddii waxa weeyaan qaadkaas loo soo sumeeyo oo loogu talagalay waxa inay madhaan way sumaysan yahay laakiin sunta uu sumaysan yahay waa qatlun batii waa dil aayar ah oo marba xubin uu dilaayo sababada
beerka keliyaha waxa loo yaqaan al-a'daa al-hayya xubnaha nool ama xubnaha noloshu ay ku xiran tahay ayaa midmid loo dilaa laakiin haddii la doono kow qofka in laga siiyo isaga ayaa sun caadiya loogu soo dari lahaa taasaa waxa weeye ilaahay naga jeediyey oo waxa weeyaan uu inaga fooraniyey oo aana waxa weeye ilaahay nagu sababin subxaana wa taala ilaahay naguma sababo sidaa aawadeed qaadku amnigeenna ayuu ku yahay khatar amnigeenna halis ayuu ku yihi askari qaylaya waxba ma ilaalin karayo runta haddaynu isu sheegno nin fayaasan oo mirqaansan oo xanuunada aan soo sheegay ay hayaan kulligood amni ma ilaalin karayo amnina ma damaanad qaadi karayo sababtaa markuu qaadka waayo u xaraaradoodo laba mijoodoo dadara haddii loo dhiibo hadduu qarxayo maayo hadduu dayaamayo iminka danka geli maayo isagu amnigeennii buu halis ku hayaa qaadku aynu ku faanayno nin kasta oo siyaasiya iyo nin kasta oo wasiira oo hadla amnigu ku faanaa waxaynu nahay dalalka ugu ammaanka badan leh waxaynu ku nooloonaynaa amnigeenu cagay intee leeg buu ku taagay ma isweydiinay cagay intee leeg buu qodan yahay amnigeenu 3 mitir ba 2 mitir ba mitir ba nus mitir ba intuu qodan yahay miisaanka ma saarnay oo ma miisaanay deedna markaynu ogaanay xaqiiqada amnigeena adkeyntiisa ma ka shaqaynay maya kama inaa shaqayn qaadka ka hadalkiisu waa aafar ruux walba danqaysa laakiin anigu cidduu danqayana uma jeedo cidda aanu danqayna uma jeedo waa fariin digniin ah oo dalkayga iyo dadkayga iyo dawladayda aan u diraayo waa naxdin iyo turid aan u turayo waddankayga iyo muwaadiniinta ila nool waxa weeye turitaan iyo danqasho aan u danqanayo dalkayga haadaanta ka sii dhacaya iyo dadkayga waxa weeye burburka ku sugan iyo waxa weeye caafimaad darrida dadkayga darxumadu laynaysa waxa weeyaan aan cid daryeelaysaa aanay jirin hadday jirtana ay yar tahay dadkayga midiyaha gacanta ku sita ee waxooda googoynaya fariin aan u diraayo weeye ubadka dayacan ee aabbahood inuu dhintiyo inuu nool yahay waxba aanay uga dhaxaynin ee agoonta macnawiga ay iska noqday ooryaha carmalka macnawiga ay iska noqday turitaan aan u turaayo weeye aabbayaasha leeday ee dayooday aabbayaasha dayacay dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodii iyo ubadkoodii fariin aan u diraayo weeye culimada aamustay ee dalkoodii iyo dadkoodu aanu danqayn fariin aan u diraayo weeye madaxda sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha ku fadhida ee dalka hogaaminaysa damir inay yeeshaana dadkayga u naxaan fariin aan ugu diraayo weeye walaalayaal laakiin cid gaara aan ugulama jeedo cid gaara ulama jeedo maa uriidu ila alislaaxa ma statacت wamaa tawfiiqii ila billah calayhi tawakalt wa calayhi falyatawakal ilmutawakkiluun walaalayaal qaadku waa dayaac adduunyada ina dayacaya aakhirana inaga dayacaya nabi muxamedna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam kun fi dunya kaannaka gariib aw caabiru sabiil wakana cabdullahi bni cumar yaquul bihada alxadiid ida asbaxt falaa tantadir ilmasaa waida amsayta falaa tantadir isabax wakhud min sixatika limaradik wa min xayaatika limawtik cabdillahi bni cumar ibni khadaab baa nebigu labada garab qabtay waxa uu ku yihi rasuulku cabdillahi ow adduunyada ku ahow sidii nin socoto ah ama waxa weeye gariib aho yacnaa waxa weeye markaa aan u dhalan marka waddan aan u dhalan jooga ama waddo ka tallaabaya ku noqo cabdillahi bn mascuud cabdillahi bn cumar wuxuu odhan jiray hadduu gabalku kuu dhaco waa beri ha sugin waagu hadduu kuu beriyana gabaldhac ha sugin caafimaadka inta aad qabto uga sahay qaado xanuunkaaga inta aad nooshahayna geeridaada uga sahay qaado sidaa aawadeed walaalayaal intaad doonto noolow waxaad doontana jeclow axbib maa shiit fainaka mufaariqo wax alla waxaad doonto jeclow mid ka tegaaya ayaa tahay wacmal maa shiit fainaka majziyun bih waxaad doontana samee waa lagu weydiin doonaa iyo qiyaamaha waa lagu xisaabin doonaa walaa shaka anaka mulaaqiih shakina kuma jiro inaad la kulmi doonto wixii camala aad samaysay wa kun maa shiit wax alla waxaad doonto noqo si alla sidaad doonto u noolow fakamaa tadiinu tudaan hadba sidaad u dhaqanto ayaa lagula dhaqmi doonaa cinda allahi subxaana wa tacaala walaalayaal ma jiraa caqligii soo noqonaya ma jiraa ruux miyirkiisi raadsanaya maynaga mid yahay damiir danqanaya maynagu jiraa jidh iyo nafdigiga xoonaysa maynagu jiraa muwaadin dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa iyo dawladdiisa u turaya maynagu jiraa ruux dalkan danka leh oo doonaya dalkiisu inuu horumar gaadho dalalka adduunyada ee ummaddu ay ku nooshahayna la sinmo haddii ka noocaasi inaga mid yahay aafada qaadka aynu isaga digno ka iibinaya aan uga digno ka iibsanaya aan uga digno aan iska waanino dhammaanteen aynu iska goyno go-aan aynu ku gaadhno ilaahayna aynu tala saarano waa wax la iska dayn karo fudud maalmaha ramadaanka ee soo socda ilaahay nabadgeliyo
naxariis bashbash iyo barwaaqo haynagu gaadhsiiye amni dowlad adag oo wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala dowladdeena haynooga dhigo ilaahay madaxda haynoo hagaajiyo madaxweynaheena ilaahay miduu caafimaad taama siiyo cumri dheer allaha ka yeelo mid camal saalixa u waafajiya allaha ka yeelo mid ummadda ku hogaamiyo khayr iyo wanaag allaha ka yeelo ummadda mid tusaale u noqdana allaha ka dhigo sidaas walaalayaal go-aan bay u baahan tahay ramadaantu waa fursade aan ka faa'iidaysano maalinnimadeeda ma qayilo habeennimadana waynu raacin karnaa maxaa inagaga baastoobay maxaa inagaga lumay waar bishaan ramadaan aan isku tashanno go-aan aan gaadhno dhaqaalaha inaga burburiya reerkeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna iyo dowladdeenna aynu gelinno dalkeenna aynu hore ugu marino ilaahayna haynaga dhigo kuwa khayrka gacmaha isku qabsada sharkana waxa weeye markaasi isiga diga allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma janibna alfawaxisha ma dahara minha wama batan allahuma wafiqna lima tuxibu watarda ya rab alcaalamiin allahuma axfadna waxfad bilaadana allahuma axfadna waxfad shabaabana warijalana wanisaana wadinana waamnana waxukuumatana ya rab alcaalamiin اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئ له بطانة صالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم اجعله رحمة على شعبه اللهم اجعله رحمة على شعبه ولأوليائك نصيرا وعلى أعدائك سيفا شهيرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم امن عليه بالصحة والمعافاة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا شعب خير وبركة اللهم أدم لنا أمننا اللهم أدم لنا أمننا اللهم احفظ رجال أمننا من الجيوش والشرطة يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ القائمين بحدودنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا رب العالمين صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون